dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni kaftanka isboortiska oo idin daadin doona kaliya anigoo Cabduqaadir Boos ah maadaama aan ka xumahay in walaashay Luul Shaalu hergab la soo dirsay barnaamijkoo dib idin kaga dhacana raali ahaado bal markana ma dhacay isbuucan xidigaha kooxda Liu Police iyo xulka qaranka Itoobiya ayaa mar kale ciyaar ka tirsanaysa reebka xuduudaha la ciyaaray koox ka dhisan deegaanka Dacadheer ee gobolka Galgaduud kooxdan maaliyadeedu soo saarto shirkad laga leeyahay Addis Ababa ayaana kulan ay hore u la ciyaareen isla kooxdan deegaanka kaga badiyay goolal gaaraya 4-0 walow kulankii ugu dambeeyay ee la martigeliyay dhankooda guuldaro 4-0 garka loo suray xilli garoonka ay ka soo muuqdeen xidiga ka tirsan kooxda Galmudug kuwaas oo aaminsanaa in laacibin Puntlandees ah ay bedel ku soo galeen ciyaarta oo socota 80 minute si kastaba ha noqotee kooxda Liu Police ayaana ku soo baxaysa farqiga goolasha ee heerka UEFA maadaama meel ka baxsan gurigooda shabaqa ay ku soo taabteen saraakiisha isboortiska kooxda Daacish ayaa subaxnimadii Arbacada ka dhawaajiyay in xidiga matala kooxdaasi ay diyaar u yihiin in bandhiga ay ka sameeyaan carrada Soomaaliya kooxdani dheesha kubadaha weerarka ayaana durba sheegatay in xidigahoodu ay darbeeyeen gawaari nooca isboortiska ee Amazon oo marayay wadada kilomitir 4 kooxdani heysata horyaalka dalka Syria iyo FA Cup-ka Ciraaq ayaana la tuhunsan yahay in si qarsoodi ay ku iibsadeen xidiga dhowr ah oo u ciyaarayay kooxda Shabaab kuwaas oo lagu soo jiitay ama loo ballan qaaday inay ka ciyaari doonaan horyaalo carbeed hadii ay kaalmaha hore ka soo galaan horyaalka Puntland si ay ugu soo baxaan Champions League Soomaaliya لاعبka ku dhiban booska joogtada kooxda u ciiday xulka qaranka Soomaaliland Faisal Cali Waraabe ayaa isbuucan u dabaaldegay qaabka naasiga ee ka baxsan anshaxa kubadda cagta 70 jirkan jecel soo muuqashada kulan walba ayaana taageerayaasha hortooda gacmihiisa ku sameynayay midabta koor uu ku kala qaybinayay daayartii Soomaaliyeed ee ku baxay gigida Mediterranean Sea Square madalahan ugu casaanka badan kulamada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaana ku qeylinayay ma isu qalmaan daayarteena iyo kuwa xamar in hal garoon ay ku wada guuldareystaan oraahda 70 jirkan ayaana ka careysiisay taageerayaal badan oo reer Soomaaliland ah inkastoo basayuulkan heerka caalami qudhiis u soo haysto mid sameeyay dabaaldeg ku cusub indhaha caalamka warbaahinta isboortiska kuwooda u dhuundulalaxanta suuqa ayaa wax ka qoraya in labada xidig ee DJ Shucayb iyo Nasteexa Indha ay gaareen heshiisyo hordhaca xidigahan midkiiba lagu qiimeeyo $40,000 ayaa labaduba ku faraxsan heshiiskaas iyagoo wacad isugu maray in midkoodna kan kale uusan ka tageen inta ka harsan waayihiisa ciyaareed walow labadan way arag heshiisyo noocaas hore ugu soo kala saxiixeen kooxihii ay ka soo kala hayaameen labadan laacib ee hilibku boobay ayaana haatan diyaar u ah inay xero gooni ah ku almiiteeyaan inkastoo tababarkaasi aan laga heli karin wax muuqaal ah maadaama saxaafadda aysan xaq u lahayn inay gaarto diilinta hoose ee ganaaxa xidigta ugu qaalisan saxaafadda isboortiska Farxiyo Fiska ayaa mar kale toos ugu dhiiratay in heshiis ay u saxiixdo laacibka dhowr jeer calanka guusha isla ruuxeen ee Bashiir Hanuuniye saxaafadda Daynila ayaa hadal haysa in labadan qabiir ee goosgooskooda dagaalka wali uu ku jiro janaalka YouTube ay kala saxiixdeen qandaraas gaaban oo hal sano ah iyadoo wakiilka labadan xidig oo adeerkood ah uu heshiiskaasi duca ku kabay qubarada falanqeysa isboortiska ayaa heshiiskaasi ku tilmaamtay mid dani ugu jirta xidiga Seerisida u laaban rabay ee Bashiir Hanuuniye kaas oo u hanqaltaagaya dakhliga laacibada kaga soo xarooda bandhigeeda garoomada bal markana hubinteeni maanta oo kale maxaa dhacay maanta oo kale sanadii 2011 fanaanada Falis Waayaha cusub ayaa waxa la soo dirsay qalqal dhanka mustaqbal ciyaareedkeeda ah markii xidigta baafiska u baahan haatan Ikraan Caraale ay dalab ka soo gudbisay xidiga Shiina Qiyaar walow dalabkaasi markii dambe isu bedel qas iyo foodo live looga daawanayay YouTube-ka sidoo kale maanta oo kale 2011 laanta caafimaadka ee FIFA ayaa baaritaan u dirtay labada xidig ee Qoomaal iyo Maryan Mursal markii looga shakiyay inay isticmaaleen maadada jirka kobcisa ee kokeenta tuunkan ayaana ka dhashay markii 70 jiradan ay joogteeyeen bandhigooda romantiga markana baafinta waxa la baafinayaa xidigii hore kooxdii burburtay ee Honafriq Maxamed Cumar Baakay markii cid ugu wardambeysana wuxuu dhabarka dambe ee maaliyadiisa ku qortay in hubso inta aadan idilin ka hor haddaba cid allaali cidii aragtay xidigaasi nacib in shabaabku salfadana waxa laga codsanayaa in shaqo ay u raadiyaan midkood BBC ama VOA hadii Ingiriiskiisu uu saamixina waxaad mikrofon u suri kartaan daaqada dambe ee aqalkiisa isaga qeylin doona
sidoo kalena waxaa la baafinayaa xidigii hore ee kooxda saxaafadda Cabdirasaaq Kambala markii cid ugu wardambeysana wuxuu lahaa midab madow ah oo lagu aqoonsan karo. haddaba cid allaale cidii aragta xidigaasi jecel shukaansiga gabdhaha Yurub waxaa laga codsanayaa inay ku soo hagaajin karaan xafiiska magaalada Cape Town ku leeyihiin Cabdullaahi Balwaan ama Cabdirasaaq Inna Jacayl, ama waxaad u sheegi kartaa in gabar Soomaali Yurubiyaana ay doonayso guur, isaga shan telefoon idin soo qori dooneen. intaas ayaynu ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeeni kaftanka sportska. barnaamijkana waxaa idin soo jeedinaya anigoo Cabduqaadir Boos. barta aan ku leenahay Facebook ayaadna kala socoteen. halku dhigeen waa lagu xaanto lagu xasuusta ayaa ka horeysa. waa bahda barnaamijka oo isku duuban oo idin la gaashaankiina noolama keena dooqa dhagaystuhuna waa Cawil Cabdullaahi Xalane from Muqdisho. heestii Digriyow dooqa in kaga dhaxbaxo wixii ku dambaanaya dirinaya dhibkaaga dadkaaga jeclaada wuxuu dooqu raacaa dutiisana maanta qalbigaaga cadwacan wuxuu dooqu raacaa